kulanti wanaagsan daawadayaal dhammaantiin meel kasta aad joogtaan iyo si kasta aad noo daawanaysaan qodobada ugu waaweyn ee barnaamij wareedkeenna aad ku daawan doontaan haddii allaha awoodda leh uu raalli uu ka noqdo waxaa qayb ka noqon doono guux aad u xooggan oo caawa ka jira qaybo ka mid ah magaalada muqdisho xilli maalinta birritaha uu furmayo kala fadhiga labaad ee golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaana khudbad ka jeedin doona farmaajo iyo Xasan Sheekh ayaana isku arki doona kulankaasi barnaamij wareedkeenna ayaa ku faahfaahin doona isjiidashada qaybo ka mid ah Muqdisho ka socota ee ku aadan kala fadhiga furmaya maalinta birrita qodobada kale waxaa qayb ka noqon doono madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo caawa ilalka ka qaadaya taliyaha ciidanka xoogga dalka Generaal Odawa Yuusuf Raage iyo sidoo kale taliyaha ciidanka booliiska maxaa hadda ku soo beegay xilka qaadista barnaamij wareedkeenna ayaan ku faahfaahin doonaa Abshir Buqaarina waxaa la rabaa in loo magacaabo guddiga madaxa bannaan ee arrimaha doorashooyinka qaranka yee tahay cidda u magacaabaysa iyo sidoo kale danaha laga leeyahay in Xaliimo Yare lagu bedelo barnaamij wareedkeenna ayaan ku faahfaahin doonaa ciidamo nabad sugida oo si gaar ah uga amar qaato agaasimaha hay'adda nabad sugidda Mahad Maxamed Salaad ayaa waxa ay soo xireen shiiq lagu magacaabo Mustafa Cali Caanood oo lagu eedeeyay in uu taageero fikirka kooxda Al-Shabaab barnaamij wareedkeenna ayaan ku faahfaahin doonaa qodobadaas iyo sidoo kale qodobo kale oo xiiso leh balse haddii ay tahay markii kugu horreeyey ayaa soo booqatay janalkeenna waxaan kaa codsanayaa in aad rukumato si ay kuu soo gaaraan wararka iyo warbixinada xiisaha leh ee halkan aan soo gelinno mahadsanidin dhammaantiin aan ku bilaabo barnaamij wareedkeenna caawa xaaladda magaalada caasimadda ee Muqdisho ayaa ka duwan habeenadii hore iyadoona guux siyaasadeed oo aad u xooggan uu ka jiro maadaama maalinta birritaha lagu wado in Muqdisho uu ka furmo kala fadhiga labaad ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya isla markaana uu khudbad uu ka jeedin doono madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya Sheekh Aadan Madoobe oo ay wehelinayso gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka Marwo Sacdiyo Yaasiin Xaaji Samatar ayaa waxay shir gudoomiyeen kulanka guddiga joogtada ah ee golaha shacabka ayagoona kulankaasi ku go'aamiyay in kala fadhiga labaad ee baarlamaanka Soomaaliya uu furmayo 15 bishan oo ku beegan maalinta birritaha isla markaana madaxweynaha uu khudbad uu ka jeedin doono haddii Muqdisho birri uu ka furmo kala fadhiga labaad ee golaha shacabka waxaa hor yaalla muddada uu socon doono kala fadhigaasi ajendayaal dhowr ah iyadoona madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ay isku arki doonaan maadaama Farmaajo uu birri ka qayb galayo kulanka kala fadhiga labaad ee golaha shacabka xildhibaano ka tirsan mudanayaasha golaha shacabka ayaa Somali Press TV waxay u xaqiijiyeen in caawa magaalada ay la ciirciirayso abaabul iyo sidoo kale guux siyaasadeed oo aad u xooggan maadaama xildhibaanada golaha shacabka inta ugu badan ay joogaan Muqdisho sidoo kale xildhibaanadii kale ee dibadda ku maqnaana ay yimaadeen ilaa ya hadda nuxurka khudbadda uu ka jeedin doono madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud kala fadhiga labaad ee golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya ma cadda balse wuxuu madaxweynuhu uu ka jeedin doonaa hadallo ammaan u badan oo ku aadan sida dawladdiisa ay u bilowday dagaalka ka dhanka Al-Shabaab qodobareedka xiga ee barnaamij wareedkeenna ku jira haddii aan sii faahfaahinno sida xogaha la helay ay tilmaamayaan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo gudoomiye Aadan Madoobe ayaa isku waafaqay in la kala diro guddiga madaxa bannaan ee arrimaha doorashooyinka qaranka iyadoona dawladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ay guddigaasi ka dhex aragtay dana dhowr ah oo ay dawladdu ay ka fulin karto guddiga oo howshiisu ay tahay in dalka ay ka hirgeliyaan doorasho qof iyo cod ah ayaa sanadihii la soo dhaafay waxay ku fashilmeen in doorasho qof iyo cod ah dalka ay ka hirgeliyaan taasi oo markii dambe seegtay in dalka uu laabto heer dawlad goboleed iyo in xildhibaanada lagu soo doorto
doorasho ah mid deegaan ah filla Soomaaliya ayaana damacsan in xilka ay hadda hayso Xaliimo Ismaaciil Ibraahin Xaliimo Yare ee ah guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka in loo magacaabo wasiir dowlaha madaxtooyada Soomaaliya Abshir Maxamuud Abshir Buqaari oo ka mid ah xubnaha saameynta ku dhaxleh dowladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud xogta aan helnay ayaa intaasi ku sii daraysa in hadda xafiiska madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ay dhex taallo warqadda lagu kala dirayo guddigaasi iyo sidoo kale magacaabista in Abshir Buqaari uu noqonayo gudoomiyaha madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka haddii taasi ay dhacdo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa doonaya in Abshir Buqaari uu kala shaqeeyo dib u soo laabashada xukunka Soomaaliya 4 sano oo kale mar haddii uu xukunka uu ka dhammaado madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyadoona ay u muuqato in doorashada soo socota ee Soomaaliya ay noqon doonto doorasho qof iyo cod ah oo dowladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ay hirgelin doonto qodobareedka xiga ee barnaamij wareedkeena ku jira haddii aan sii faahfaahinno madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu wadaa la tashiyadii u dambeeyay oo xilalka uu kaga qaadayo taliyaha ciidanka xoogga dalka Generaal Oduwa Yuusuf Raage warar lagu kalsoonaan karo oo aan helnay ayaa sheegaya in saacadaha soo aadan gebi ahaanba xilka laga qaadi doono taliyaasha ciidanka xoogga dalka Generaal Oduwa Yuusuf Raage iyo sidoo kale taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed Master Xijaar ila wareedi lagu kalsoon yahay oo aan ka helnay xafiiska madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxay inoo xaqiijiyeen in la saxiixay digreetada magacaabista taliyaha cusub xilli xalay la magacaabay taliyaha ciidamada badda Soomaaliya isbeddelka lagu sameynayo hoggaanka taliyaasha ciidamada booliiska iyo sidoo kale xoogga ayaa ka dhigan in taliyaha ciidanka xoogga dalka Generaal Oduwa Yuusuf Raage iyo sidoo kale taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed Generaal Cabdi Xasan Maxamed Xijaar ee saaxiib dhow la ahaa dowladdii nabad iyo nolol ay sanadkani barkiisa ay la shaqeeyeen dowladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud balse hadda la gaaray xilligii xilka laga qaadi lahaa taliska ciidanka xoogga dalka ayaana la filayaa in loo magacaabo sargaal ka soo jeeda dhinaca Puntland sida xogaha ay sheegayaan oo hore uga soo mid noqday ciidanka kumaandooska danab iyadoona tala ahaan uu Saciidani madaxweynaha Puntland uu wax ku lahaa in xilkaasi loo dhiibo ruuxani ka soo jeeda deegaanada Puntland taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed Master Xijaar haddii xilka laga qaado waxaa xilkaasi loo wadaa qof ka soo jeeda deegaanada Koonfur Galbeed sidoo kale taliyaha ciidanka dhulka iyo taliyaha ciidanka gorgor iyo abaanduulaha ciidanka ayaa dhammaantood xilka laga qaadi doonaa oo wareegtada uu soo saarayo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud lagu arki doonaa magacyada shakhsiyaad cusub oo u badan xisbiga talada haya ee dib u jidid qorshe iyo sidoo kale dagaal siyaasadeed oo cusub ay dowladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ay ku bilowday siyaasiyiinta saameynta adag ku leh xisbiga nabad iyo nolol ee mar talada dalka soo hogaamiyay qodobareedka ugu dambeeya ee barnaamij wareedkeena ku jira haddii aan sii faahfaahinno ciidamo ka amar qaata taliyaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA Mahad Maxamed Salaad ayaa duleedka Muqdisho waxay ka soo xireen sheekh lagu magacaabo Sheekh Mustaf Cali Caanood oo lagu eedeeyay inuu si aada baraha bulshada ugu faafiyo fikirka kooxda xagjirka ee Al-Shabaab dowladda Soomaaliya ayaana sheegtay in xabsiga godka Jilacow la dhigay sheekhaasi oo lagu helay in khudbado uu ka jeediyay deegaanka ceelasha biyaha uu si bareera u gaaleysiiyay madaxda ugu sarreysa dowladda isla markaana uu taageero ugu muujiyay dagaalamayaasha Al-Shabaab waxaana ciidamadu ay sheegeen in Sheekh Mustafa Caanood uu isku dayay in ciidamada uu ka baxsado balse howlgalla degdeg ah oo ay sameeyeen ay u suura gashay inay gacanta ay ku soo dhigaan waa tallaabo kale oo ay dowladda ay u qaadayso dagaalka ka dhanka Al-Shabaab iyo fikirka ku aadan faafinta falalka xagjirka ah oo ay dagaalamayaasha Al-Shabaab ay hadda rabaan in baraha bulshada ay ku maran habaabiyaan shacabka Soomaaliyeed si fikirkooda
uu u soo gaaro maadaama horay dawladdu ay ula dagaashay baraha internetka oo ay kooxdaasi adeegsan jireen. guud ahaan waxaan halkan ku soo gabagabeynayaa barnaamij wareedkeennii aad kala socoteen Soomaali Press TV. nabadgelyo saaxiibayaal.